wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay inuu soo rogaal celiyo caabuqa COVID-19 madaxa xaaladaha degdega ah ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiraxmaan Cumar oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka Sam News ayaa sheegay in 10kii cisho ugu dambeeyay xanuunkaasi u geeriyoodeen 10 ruux. dhakhtarka ayaa bulshada Soomaaliland uga digay halista caafimaad ee ka dhalan karta caabuqa COVID-19 isagoo bulshada kula dardaarmay haddii ay isku arkaan astaamaha caabuqan ay si degdeg ah ula soo xidhiidhaan goobaha loo aastay. haddaan idinka warramo xaaladda ay marayso uu marayo cudurkii COVID-19 waxaan idin sheegayaa in horta maalmihii u dambeysay iyo aan ilaaho toddobaadkii ugu dambeeyay in uu soo kordhay xaaladihii u soo dhacayay cudurka COVID-19 oo aad iyo aad u batay gaar ahaan 3 maalmood ee u dambeeyay amba aan oran karo 4 maalmood u dambeeyay de isla mar haddii cudurkii batayna dhimashadiina ay la socoto haddaan idin sheego dhowrkii maalmood u dambeeyay xalayto dadkii aan ogaanay inay cudurka u soo dhaceen 50 qof baan helay oo kala jooga wadanka intii ilaa iyo baran oo xag bari ugu xigta iyo ilaa iyo Booramo galbeed ugu xigta inkastoo ay inta badan ay u badan tahay magaalada Hargeysa dhexdeeda oo 50ka 32 qof amba 32 qof oo ahaa magaalada Hargeysa dhimashada lafteedu de magaalada Hargeysa ay ugu badan tahay waxaan oran karaa 10kii cisho u dambeeyay 10 qof baa naga dhintay maalin bad ay sida u dhacdaba marka waxa la oran karaa ugu yaraan qof baa maalintii dhimanaya intii uu cudurku soo kordhay taasi waxa weeyaan guud ahaan marka Soomaaliland oo aan oran karno xataa tuulooyinkii meelaha qaar kood oo aanu markii hore cudurku ka dhici jirin ayaanu ka helay cudurkii oo uu gaaray marka de baadhitaankana waa la baarayaa goboladoo dhan way baadhitaanka uu yaala Hargeysa uu yaala Booramo uu yaala Burco Berbera ilaa Ceergaab iyo Laascaanood waa la baarayaa waa la baari karayaa xataa tuulooyinka magaalooyinka yaryar qaar kood way jira baadhitaankii de xaaladii saasay maraysaa guud ahaan. sidoo kale madaxa xaaladaha degdega ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Cumar ayaa sheegay bulshada Soomaaliland goobaha ay ka heli karto tallaalka COVID-19 imika tallaal baa jira tallaalkaas waxaanu dadka leenahay war intii fursad haddaad waad haysataane fursadda ka faa'iideysta oo tallaala oo qaata tallaalka wax dhibaato oo aanu ku haynaa ma jirto kuteen way jirtaa ay dadku oranayaan dhibaato keenaya kanuu keenaya laakiin anagu intii aanu soo tallaalay wax qof ku dhibaatooday maanaan arag qof u dhintayna maanaan arag haddii ay meesha qofka laga tallaalay yar xanuun amba xumad yar yeesho taasna waa wixii dawooyinkii lagu la tacaali lahaa waa la hayaa intaas maanu ku haynaaye wax weyn oo aan ku haynaa ma jiro tallaalkii imika waxa laga bixinayaa magaalooyinkii waaweyn oo dhan Hargeysa Burco Berbera Laascaanood Ceergaab Boorama MCH-yada amba xanaanooyinka ayay yaala tallaalkii qof kasta xanaanada ugu dhow magaalada uu joogo inuu tago oo tallaalkii ka qaato. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga telefishinka caalamiga Sam News Hargeysa.